maalmahan oo kale bal taariikhdeena magaaladan gaar ahaan wixii nagu soo maray in badan oo dadka kamid ah way u soo joogeen inna way yaraayeen ama kadib ay dhasheenba yani magaaladan sidii ay noqotay yani burburka markii uu yani meesha ugu dambeysay uu gaaray iyo dadku sidii ay noqdeen iyo dhibaatadii la soo maray yani wax laga sheekeyn kara ma ah laakiin quraanka wuxuu ina amraaya dadka in looga sheekeeyo maalmaha soo mara oo ilaahay wuxuu leeyahay wadakirhum dadka xusuusi bi ayaami ilaahi maalmihiisa dadka u sheeg maalmaha dadka loo sheegi maxay yihiin marka laba bay mid noqonaysaa marka maalmo dhibaato ay jirto oo intii dhibaatadii looga sheekeeyo ayna ku sabraan cibran ay ka qaataan iyo maalmo wanaag iyo farxad intay ku soo maraan maalmahaasi ay ka faa'iideystaan oo ilaahay uga shukriyaan sida aayaddu ay ku dhamaanayso inna fi dhalika la aayatin likulli sabarin shakur ayaddu waxay ku dhamaatay sabar oo ah sabir badane iyo shakur oo ah shukrin badane siiqa mubaalaqa la yiraahdaa maalmihiina waa laga soo sheekeeyo wadakirhum bi ayaami ilaahi ayaa la soo yiri marka maalmaha ilaahi waa maalmo ilaahi laakiin dhacdooyin ku soo aada ayaa jira dhacdooyinka ku soo aada marka haday dhib tahayna intii laga sheekeeyo dhibkiisuuna u soo noqonin haduu jiraan looga baxo ayaa looga sheekeeyaa sina loogu sabro hadii uu dhaaf ahaana dhaafti baa laga sheekeeyaa iyo maalmihii si ilaahina looga mahad celiyo hawshaasna inay sii socoto dadka loogu gubaabiyo marka ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu noogu tilmaamay hadaad mu'miniin tihiin yaa ayyuhalladheena aamanu ilaahay wuxuu istajiibu lillahi wa lirrasuuli idha da'aakum lima yuhyikum ilaahay rasuulkiisa warkooda yeela haday idinku yeeraan waxaad ku noolaanaysaan dadka laakiin maslaxadooda ma yaqaanaan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuun ilaahay asaga yaqaan idinku sagaran maysaan waxa laga yaabaa dadku waxay maslaxad u maleeyaan inayna maslaxad u ahayn ay ku halaagsamaan hadda ummadeena Soomaalida inay isjeclaato oo ay walaalo ahaadaan oo ay wax wada qaybsadaan oo ay wax isu ogolaadaan oo isku kalsoonaadaan way fiican tahay oo wadantooda ku jirta laakiin kalsooni xumada iyo isku xadgudubka iyo dulmiga iyo waxa la isku sameeynayo ayaa waxa laga yaabaa dad qaar inay u maleeyaan sidaas amay tahay sida maslaxa lagu gaari karo taas maslaxa lagu ma gaaraaye dib un baa lagu gaaraa inay taas tahay waxa ku tusaysa taariikhdiina soo martay iyo sida dadku ay u rafaadeen guri walbay gashay dib walba dadkii gaaray halka intii laga lugeeyaa bilowga dagaalada iyo ayuu dadku dagaal ayna aqoonin ayaa lug iyo meelaha gobolada loo kala qaxay waa la rafaaday meelihii isku madaynin waa la isaga daba tagay xagga la maray kolba dhinac baa loo yaacay waa la isdhex jiray ugu dambaystana rafaad iyo burbur iyo halaag uma meesha ay ku soo dhamaatay marka taariikhda intii laga faa'iideeyo waxa la rabaa in bog cusub la furo bogaas cusub wuxuu ku furmayaa marka sida lagu noolaanayo sida ay tahay ilaahay inoo sheegay sida lagu noolaada ilaahay wuxuu inoo xadiday dadka mu'miniinta ah xiriirka ka dhaxeeya sida uu yahay markaas ilaahay wuxuu yiri wama kana limu'minin qof ilaahay rumaysan uma ahaanin an yaqtula mu'minan mid ilaahay la rumaysan inuu dilo yani waxa dhici kara ma ah waxay dhici kartaa un ilaa khadaan si kama ah kul talagal aan haday uga dhacdo ma ogi haday taa dhacdo xataa waxa laga dajiyay sharci oo ah qofkii xataa si ula kacaan ahayn oo kama ay uga dhacdo maba la isku ogeyn inay saas dhacday laakiin qadaray ku dhacday way dhacday kasma ah waa kama see la yeelaya dhibaato waxa ugu filan qofkii kama gaas geystay hadii xaga oo maaliga laga fuudeeyo oo diinteenu waa diin naxariis badan oo qofkii midalan waxa asagoosan u kasin ka dhacaan in ciqaab asaga keligii la marsiyo oo culays keligii uu fuulo bulsho muslima oo walaalihina uu la joogo diinteenu saas ma qabto waxa leeyahay qofkan asagoo aan ku tala gelin ee arintaas la kulmay ee qof walaalkii oo mu'min si kama ah u dilay qabiilka uu ka soo jeedo qofkaasi hal bixiyeen diyada la bixinaayo diya laga rabaa diyadana keligiis uu na bixin maxaa yeelay hadii asagoo ku tala gali lahaa waxba ay ahaan lahayd waxa leeyahay iska kor qaad adaa ku tala galay laakiin maadaama uu ku tala gal oo kama ay tahay hal kaalmeeyo hal garab istaagaalay inta lagu ma dhaafin way uu kaalmeynaya diyadii reerka bixinaya xagga la dhigay marka waxa kale waajiyaysa markii diyada la bixiyo kadib waxa leeyahay al kafaara kafaaradu waxay tahay arintaani naftaan ilaahay baa meesha gashtay adigu inaad bixiso oo qofka aad disho lagu ma ogolayn waad samaysay kama baan u samaysay ilaahaygi hadilin ku yiri kama ba ka ahaatee arintan ka dhacday si dambiga lagu dhaafo waxa laga rabaa kafaaradu waa imisa marka kafaaradu waa 2 bilood oo soon ah oo isku xiga hatta wax kale hadii la waayo kale kuma jirto hadda waqti qofka haduu midna ahkaam waxa jirta dhaysanina wuxuu ku leeyahay midna islaantiis hooyada baad igala mid tahay dhihara la yiraahdaa qofkii markuu islaantiis ku yiraahdo hooyada baad igala mid tahay waxa ku waajibta inuu xoreeyo fatahriyo raqabatin haduuna heli kareynin
وحالي في إطعام 60 مسكينا لحدا مسكين أيو قودنا لكن ديلك لما دهن هدود سوامي كرينين مساكين وقودنا هديل ديلها انتي تتكلم ديلون با لحدا مسكين بيقا كفلا هل دولار لسي وباللحدا دولار بس كان ماتي قفك مؤمن كان مركا نفتي ساس رقيس ومعه وحالي قفك كما وعد له وحالة ربا إنه صومه شهرين متتابعين توبة من الله لببلوت أو حريرة أو دنبقي إلهي وكجلي إلهي يقدف مركز مثال ده يسوق هذا ذلك بابور توضيئه يا مرمر مثلا شيل بابور بعد قف يعني سكة معه يا بابور كلو يقولوا فتاة مثلا قف مع كل منايا مركز حولي محاي واجباية ديدي ولا جه شيء لما ظهر بقى السوق ماضي ولا جه شيء ديدي ولا بحي لكن درور كي محل جربا وحال جربا لببلوت أو صنعة أصلا كمونة تلاقي لببلوت أو صنعة هذا إنه يكون واجبته لكن أنا تنا دعالي سمر كقف والبويسو إلى عليه أو حنون كاس كمان بحكرتي ده هذا يسوق دوائر الأوضة أو حال كورسار لبا بلاد مركز درالك وحنقول أنا لبا بلاد أصانة مركز هذا الشيء وقت كله اللي جودنا قرمان كدقة وقت هذا روب كل الرأس هذا وقت هذا بلادهم بيكعب بلابا نيسا لكن الجيش وقت يسوق وقت لما وجب بل هذا السيد هذا وجودي كرته لكن هو لبا بلاد اسكحي على جاربه حديث كما يعني لبا دي بالأصانة وهذا يوسكس أمالم حول ما أنت واسكع فرايا حول مرة كنت نيشان معلومات مال نسكع فراي مرك كنت نيشانتي ديليت واي مرك فورمات الله صار وابلا ترترب إبر كنت نيشانتي وحكي جرا ماله من جديد كو كسب بالله هذا أنا كنت نيشان كان وين يسوق جار مرك أنت عشان حلوات كينا يا قفك مؤمن كقيمة إلهك تسوق كله مرك الدستور كأنه القرآن كأن كنا ولا رأينه ساسوين له إنك سوامال هذا إنسان دقني ما لا إنسان دقني لما قفه وحوجا رأي يسوق خلاف هيسا ويرمر معيان وحلقة صوب بالله ساس مياه وما لديله ورمي يديله بس أسوس عليه يعني إلهي أبتي سوح وكيه يصير أكتر أنا كان نقضي واحد سلام معه مرك استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم قفك كاس سوء سمايا كاس وذا تقول وحال كتاب فقه وآخرنا مركز كتاب وحال صومر الصلاة عباداتك ظهارة صلاة كبعد الزكاة حاجة الله صعدا الزكاة أيضا والله مرة مركز الصلاة اللي سوى دمي يا وحال سوق على مصاريف الزكاة يا للسياح ماذا سؤال ويدي حرتي كم ذحور الشيخ وعنك ويدينا يا تارك الصلاة الزكاة ما لسين كراه مركز حكون أي تارك الصلاة باب الزكاة محاسوق جارسيب كتاب الصلاة يا من كسر الدلنبي قارمو بين لسه جاري إن زكاة لسين إن لسينين هذه 10 كرمال سوف من مئة مركز وحنا كوذا يعني القرآن كحوت المامي سكة معه هذه قف كيود له أضيق على كوساري وحيس ويدين لمركز كورن كسر هذه لو دله واسيا سومالي وبنات موقتين كانوا يحكوا لي خطأ يعني إيه قاعد أصلا خطأ كان ما يحكوا يدي حوري مدو ما مكجرو يعني أنا ما ممكن كتر سنة قولي لدي سايجين قدام مد كورسارن أو ورقة أن ما ممكن كسر قوسنين وحنا محاول لسنة أول ورقة دي مركز سعودي ورقة قدام هاي لكن كوسو دقة يسوق مركز أن حبت كل فتي وكسر عماش مركز كم 100 مسكس 100 موقف حبت توس لو قلت توسي أو لو قلت كما ماشي الميالو وكسر الله قلت مركز يعني كسر مركز النقطة هذا وحنا كان لنا كما يعني ما كسر بسنة أساس لكن سيدا هذا كسر الله سمايو دتك كأنه ما يسبع إنه مباح النقطة أو يعني دتك قدام رأي كل الدول هذا أما قبيلة سوق خلافين أما وجدت نظر كانت سوق خلافين يعني دلكوا إنه عادي أو يعني نقطتين قرآنكم معارض أسكيري قرآنكم حوري ومن يقتل مؤمنا قف كي الدلة متعمدا كسر الدلة هداي محايد وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ صماهن خطأ أنت وحال سيسة بأحكام كلا لقسي جدي فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا قار إلا حري كسر جولة موتى قار إلا حري إن دي لبحي ورك لا لقسي كان ورك لا قبلهم حال ومن يقتل مؤمنا متعمدا قف مؤمنا كسر الدلا محالي محاكو حاجة فجزاؤه جهنم بس ويبقى ما طيب قارها حرية ديها ديبه ماشي ما طالب وحاله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم في مدينه وحيره markay bakaara soo socdaan laba baawur jirto oo BLK kuna la mar faray maraan intay maraan shaqaalay ka leexdaan ama intay meel kale leexdaan kuna tarbuun toos waxay u maraan banaadir markaas tarbuunka maraan bakaara halkaas ka galaan kuwa bakaaraha u socday banaadir maraay waxa la yiraahdaa bakaaraha toos la yiraahdaa markuu kirishmaygu naadinayo wuxuu leeyahay bakaaraha toos marka waad fahamtay meesha uu socdo ma raacaysa dad shaqaalaha rabtid marka daayid waxaan ku keenay
قف مؤمن الدلة ديا بحنا يا وحبوس معه ومن يقتل مؤمنا متعمدا معه بكاراتوس وما ده حمد جرتبه ها بكاراتوس واي marka waxa la rabaa quraankeena inaan la noolaano oo arrimaha uu inoo sheegay intaan hoos u fiirino ahna muxuu inoo diidan yahay muxuu inoo ogol yahay afala yatadabbaruna alqur'ana soo quraanka ma dhahay am ala qulubin aqfalha marka in la iska ilaaliyo oo quraanka wuxuu sheegayo maal aan maanta in la xisaabtami doona wadankeena wixii ka dhacay waad aragteen iyo rafaad ka dhacay dadkii isku eriyada isku burbursaday wadankan dhexdiisa maanta hadaa tiriso ayaa ka joogaba adduunyadan waa in yar oo la joogay meesha rasmiga ee la isugu tagi doono waa aakhiro wama alxayaatu dunya adduunyada ma ahana illa lahwun wa la'ib wa ciyaar iyo maalmo yar lagu yar mashquulo wa inna al-aakhirata lahiya al-xayawaan meesha nolosha rasmiga ay ka jirto waa aakhiro marka meesha rasmi loo noolaan lahaa hadaad iska qasto meesha aan toos loo noolaanaynin ee waxooga inta leeyna joog laga tagi laana tiraahdo hadda ii tahay meeshan aan camiro khasaaro waxa qofka ku dhacaaya aan laga soo kabanaynin marka adduunyada way yartay aakhira ayaa ballaaran yaynan aakhira iska halaynin qofku waxa rabaa hamigiisa inuu noqdo maanta waa adduunyo barina waa aakhiro ilaahay maxaa loo hortagi doontaa laakiin reer hebel aan ka tirsanayo nooc hebel aan ahay iyo xagay ka dhacday iyo hadhow waxa soo dhan waxay taraan ma jirto wataqadda'at bihim al-asbab dadka wixii isku xiri jiro dhan way go'ayaan qof walba iyo amalkiisa hor yaala marka ilaahay wuxuu noo tilmaamay saan ku noolaan waxay tahay inaan quraanka ku amal fano waa dastuurkeeni waa manhajka ku noolaan lahayn taas waa mid kale waxaan soo qaadanay maanta ummadeenu qayladeeda iyo murankeeda iyo ana fiican ayana inta ka dhacay ana mucaarada ana muhaafada qof walba uu ordaaya maxaa la sameeyaa marka waxa la sameeyaa wax dadka ka dhaxeeyo oo lama taabtaan horta waa inay jiraan diinteena islaamka waa ra'sumaalkeena wadankana waa saas waa qadiya masiiriya wadankeena inaga iskale masiirkiisa iyo arrimihiisa waa inaan ka tashano laakiin in looga taliyo lina noota tilmaamo waa wax aad looga xumaado Soomaalida kalsoonida dhexdeena ahayd intay baabacday yaa dadka qaarkii kalsooni waxay ku qabaan waxa la yiraahdo beesha caalamka iyo banaanka markaas inagiina isma ogolin kuwaas waan ogolnahay hadda isbuucan ma aqaano waxa tagay Hargeysa waxa tagay kitin kii oo qaramada midoobay Soomaaliya u qaabilsana si loo soo dhaweynaayo iyo sida uu shir jiraad u qabanaayo waa kitinad hay farmaajo tag waa kaas ma la yeelaan kitin iyo farmaajo yaa reer waqooyiga reer Hargeysa xiga والله با فرماجة حاجة كتير محيسوين يعني نصبنا كمان دحيو اسكو ابتر معها اسلام ما كمان دحيسو اسكو اسلام معها ما هكا دحية وحلا يا حاجة وتجا حاجة عدو ديدي سمله لكن Soomaalida oo walaalaha ah aan isu imaano aan wada tashano aan wixii inaga halaysan aan isla saxano aan dhameysano dadka qaarkiis waxay la tahay buur meel laga qaadayo oo kale oo maxaa mushkilo jirta yani walaalka maxaa ku diidaysa waxbuu iga halay wuxuu ka halay inta la isaga imaado hal iska raali galiyo Soomaalida waxay ku fiican yihiin dad ma aha yani uqdad badan oo arshiif male yani gadaal wixii la soo dhaafay Soomaalidu aad uma xusuustaan hadba wixii jooga maanta wixii jooga bas waxaas la sheekaystaan wixii la soo dhaafay male inay saas waxa ku tusaysa imise madaxweyne ayaa barihi la soo dhaafay lagu kacsana oo la kan madaxweyne hebelow inta uu madaxweynaha yahay lagu kacsan yahay maalku wareejiyo cid sheegaysa male barsoosii la meel laga galaa la waay wax ka jira male meel laga galaa mal ayn marka kii hadba marka joogo baa lagu kacsan yahay marka waa wax intaas ku simana wax arshiif oo gadaal oo umadu yani dad gadaal uqdad u qaba manihin bas waxay u baahan tahay xogaa yar oo farsamo oo in la isu garaabo marka oo la walaalayaalow waxba inaga khaldamay waa inaga wada khaldameen cid gaar ayda kaliya khalad kale u sameynaysi oo dadka kale ay malaa'ig ahaayeen ma jirin dad kale iska dhaafay inta ilma adeerka isla dhalatay yaan is dulminin cid walba oo Soomaaliya way is dulmisay waxa la marka intii wixii dadka dhaxmaray adduunyaha la joogaa wali lama dhiman wala nool yahay toobad way furan tahay ilaa qoraxda ay ka soo baxdo meesha u dhacdo wixii dadka dhaxmaray haday isaga imaadaan oo la iska cafiyo oo la isu arin sheegto ilaahay toobadaas wuu aqbalaya wuuna jecel yahay inna allaha yuhibbu at-tawaabiina wa yuhibbu al-mutatahhiriin marka intii dib loo laabto la yiraahdo walaalayaal wixii na dhaxmaray naf iyo shaydaan ay ka ahaadeen aan is cafino